nolosha alxayaa kullahaana waa challenges nolosha gebigeedu waa caqabaad nolosha fadhiga cid ku dherigtaa waa yartay nolosha waa dadaal iyo caqabad la rabaa in laga tallaabo ee keebaa diyaar u tahay asalhaana ilaahay quraanka wuxuu ku yidhi wain tutic akthara man fi lardi yudilluka can sabiili illah wain tutic akthara man fi lard dadka inta badan haddaad maqasho jidka ilaahay way kaa luminayaan qolo sociologuna de maanta waxay noo tilmaamaan bulshooyinka elite group yar koox yar baa hogaamisay bulshada weyne xaggii loo kaxeeyaa unbay u dareertaa dhankan loo wado uun waa shibher theory bay yidhaahdaan theoryga xerada xoolaha waxay dadkaba ka dhigeen inay dad xero ku jira yihiin xoolaha uun xaggii loo sahangeeyo ama loo kaxeeyo u dareera kolba inay yihiin ilaahina wuxuu leeyahay in tutic akthara man fi lardi yudilluka can sabiili illah quraanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa tajaaribtii ummadii hore iyo wixii ku dhacay iyo say qaar diintooda u haysteen iyo qaar siday u milmeen waxa kaloo quraanka ilaahay inoogu tilmaamayaa qurbadii koowaad ee muslimiintu siday uga baxeen marka tajribo ka horeysay islaamkan inuu hadda haysanno oo taariikhiya quraanka way ku taallaa waxa kaloo quraanka ku yaala tajribadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo de iyaba dhul muslim may joogin yani nabigu markuu soo baxay maka de gaala deganayd madiinana gaala deganayd carabina gaalay ahayd midh baa dadka uu islaamay dhowrkaa qof oo islaamiya isagu waxay ahaayeen mujtamac yaroo koobanoo ku dhex nool mujtamac ka gadisan oo diin ka gadisan haysta afka way wadaagayeen laakiin dhaqan iyo diin ka gadisan